shir jaraa'id oo maanta Muqdisho ay ku qabteen mas'uuliyiinta xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxa ay ka hadleen khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana ay sheegeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada looga baahan yahay in tanaasul siyaasadeed ay la yimaadaan si looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee dalkan ragaadiyay war-saxaafadeed ayaa halkan laga akhriyay ka hor waxaa hadlay war-saxaafadeedka Siciid Qorsheel oo ahaa wasiir hore waxaana uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka looga baahan yahay in ay si ay ku jirto in dalkan loo turo wax lagu xaliyo aanay jirin haddaynu aragnay in marka uu heerka marayo miyaynu daawanaa maxaynu qabanaynaa maxaynu xagee wax jiraan dhinacay wax inaga jiraan marka waxa weeyaan wax lagu ciyaaraa waa jiraan laakiin dal wax lagu ciyaari karo maaha wax ku sugayana maaha haddii ay noqoto in muxuu ahaa isfaham waa ay dhacdo waxaan qabnaa waxaad ka dambeeya ama madaxda maamul goboleedyada ha noqoto ama ha noqoto maxay ahayd mas'uuliyiinta qaranka ah wadda waa inay noqotaa qofku shuruudda u horeysa oo lagu xidhayo oo guud ahaan ninkaasu inuu yahay muwaadin waxa xiga markaa inuu yahay nin maaragtay qaran inuu yahay inuu nin qaranka Soomaaliyeed ka naxayo inuu noqdo war-saxaafadeedka waxaa akhriyay ay ku midaysan yihiin xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Dinaari waxaana uu sheegay in qodobo muhiim ah haddii laga heshiiyo dalkan la heli karo in xasilooni siyaasadeed loo helo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuna ay heshiiyaan waxaana qodobada ay muhiim tahay in laga heshiiyo kamid ah dastuurka oo ku meel gaarka laga saaro in la kala cadeeyo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kadib waxa uu sheegay in xalku imaan doono runtu markay daraasad dheer ku samaysay waxa sababay arrimaha soo noqnoqday waxa u soo baxday in khilaafka silkiisu yahay dastuurka ku meel gaarka oo aan kala qeexayn waajibaadka awoodaha iyo xuquuqaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka iyadoo golaha shacabka ama baarlamaanka Soomaaliyeed aanu soo saarin shuruuc dastuuri ah ee lagu sugayo kana tilmaamayo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga soo bilaabo baarlamaankii 9aad iyo midkii 10aad oo ay ahayd in adeegayaasha ugu horeeya uu ka dhigto soo saarista shuruucda la xiriirta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidoo maamul wuxuu ku haboon yahay inta aan la dhisin in la diyaariyo sharcigii uu ku shaqayn lahaa haddaba si looga gudbo ismarinwaaga siyaasadeed iyo wada shaqayn la'aanta ka taagan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka xarunta tala jeedinta Soomaaliyeed waxay soo jeedinaysaa talooyinka soo socda xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay hor iyo horaan xusuusinaysaa madaxda qaranka Soomaaliyeed mid dhexe iyo mid gobol in maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka horeyso wax kasta in dastuurka ku meel gaarka lagu dadaalo sidii loo dhameystiri lahaa si ay u kala cadaato hay'ad waliba waajibaadkeeda sida awoodaha maamul iyo xuquuqaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada 3 dakhliga iyo ilaha dhaqaalaha sida loo maamulayo iyo cidda maamulayso sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 30aad ee 130aad ee sharciga hay'adaha amniga in la diyaariyo xeer maamulayo qaab dhismeedka shaqada iyo heerarkooda stands hay'adaha ammaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaasina la qeexo inuu cadeeyo dastuurka cidda mas'uulka ah doorashooyinka maamul goboleedyada iyo korjeegtinteeda ama controlkeeda in la dhiso maxkamad dastuuri ah oo awood u leh wax ka qabashada khilaafaadka dastuuriga si kama dambays ah u xalliya khilaafaadka ragaadiye dhammaan dowladihii Soomaaliyeed ee la soo dhisay qodobka 7aad in dastuurka lagu cadeeyo waajibaadka iyo xuquuqaha ay leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed warka ka soo baxay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxa uu imaanayaa iyadoo dhawaan khilaaf cusub uu soo kala dhaxgalay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka sidoo kale waxa aloosan khilaaf maamul goboleedyada gudahooda ah sida galmudug midka hadda ka taagan Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho.